xildhibaan meydhane adigoo mahadsan faratoon baad markii dhaweyd saragteen faratoon si fiican baad u salaantay waxaad u sheegtay inaad shalay toole ka tagtay maxaad u sheegtay faratoon ka wada hadasheen markaad gacan qaadeen maanta ilaa waad ka tagtay xisbiga kulmiye waa xildhibaan waana oday qaran waana nin mas'uula oo golaha ka wada midna waayahay waxaan ka tegayna faratoon ma ahayn muuse madaxweynaha ninka gudoomiyaha xisbiga kulmiye ah ee cadaalad darradu garab taalaan ka tegay adigoo xildhibaan ka soo baxay xisbiga kulmiye ah anigoo xildhibaan ka soo baxay xisbiga kulmiye gobolka awdal ummadna sida mas'uuliyadeedii markii la yidhi inanbaa gobolka awdal ka miisaan badan iyo nabad allah ku yeelo kulida madaxweynahan mudane caaqilbaan meesha jooga maxaad u sheegtay faratoon maxaad u sheegtay markaad salaantay meel kasta ku kulmaan salaan iyo wanaag ba ka dhaxay waay maxaad ku tiri waan cibaadaystay baad ku tiri iyo maxaad ku cibaadaysatay anigoo xaqaan wadanka ku jeeliyaan ku cibaadaystay cibaadada maxaad uga jeedaa camal kasta oo wanaagsan oo qabataay iyo cadaaladooda ummadda ugu heelisay waa cibaado marka waxaad leedahay waxaan u codaynayaa cabdirasaaq khaliif axmed gudoomiyaha garabka isbahaysiga baarlamaanka u tartamaya صحفي maaha qof aad codaysa cibaadadu ma laakiin ilaahay wuxuu cadaalad ummadda ugu heeliya marka waxaan ugu heelinaynaa waxaan loo soo doortay ma jeebkayga iyo bishaar iyo lacag qaadanay waa cadaalad xildhibaan meydhane waxa la sheegayaa khilaaf hore oo idinka dhaxeeyay adiga iyo xisbiga kulmiye ama xukuumadda oo lagu eedeeyay arrimo musuqmaasuq waqtigii aad maayarka ahayd cadhada darteed inaad uga tagtay xisbiga kulmiye isbahaysiga ugu beertay maxaa ka jira arrintaasi oo lagu eedeeyay xatooyo waqtigii aad maayarka ahayd xilka ku weyday horta taas lafteeda dambi adiga laftaada dambi ku jira waxaan qofka maxkamadda ku cadeeyay way laakiin eedayn baa lagu jeediyay waa lagu eedeeyay baan quraanu aanu dambi baad samaysay kuma dhihin laakiin waa lagu eedeeyay halka iyo dhageyso way xildhibaan soo dhawow eedu qofka adigaaga maanta jooga halka waa lagu yeeri karaa waa lagu eedayn karaa way laakiin waa lagu cadeeyaa oo maxkamadda xukunka ugu riday way marka taana anagu muuse isagu maaha hay'adihii maxkamadda haysa waa mas'uulkii waddanka ugu sareeyay waxaan ka wada hadlaynay waxay ahayd arrimaha shirgudoonka iyo cadaaladda in ummad cadaalad loo sameeyo shirgudoon baa la doonayay ummad baa loo qaybinayay somalilandara ninkaasi wuxuu yidhi ree awdal hadaatiin waxba idinma hayo sidee ku dhacday markaan weydiinayna inan baa inaga miisaan badan buu yidhi haddaad tihiid ree awdaloo inan kacancaa inankaas waa nin intaasoo isaaq ku tirsanaya maxaad ku caddaynaysaa in sidaa yidhi madaxweyne anigu lilaahi kitaabka maxaad caddaynaysaa caddayn maxaad u haysaa anaaba kula hadlay anigu hala ka deeg maxaad ku caddaynaysaa siyaasadda waa lagu kala aragtid wanaan karaa waan soo fadhiinay waana loo wada jooga 5 xildhibaanoo gadabuursiya 2 wasiir jalanka inta way joogeen oo maasan aad baa maasan